oo wanaagsan habeen wanaagsan isku soo laabad wanaagsan caawa waxaan idin wadaa barnaamij ku saabsan hooyooyinka haysta caruurta qaba baahiyaha gaarka iyo caawimaadda ay u baahan yihiin meelaha ay ka heli karaan barnaamijka waxaa igala qayb galaysa Sahra Diiriye oo ah brain maskax kobciso iyo sidoo kale Shukri Siido Xasan oo ah wariye lahna Shukri Sharaf Janal marka hore u soo dhawaada kaaha nolosha وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فردوسة ودونهاي ويركو يعني يروح عن ربعنا عن شيقا أنا وحن عن سميو وحن هاي سهرة عبد الله ديري أما سهرة ديري وحن كشقيا وحويا تربية وحن هاي كوتش بيرنت كوتش إيو مثلا براكتيشنر mental health practitioner meesha aan wax ku gudbiyay waxa la dhahaa programkayga magaciisa maskax kobcis marka aad ayaad u mahadsan tahay sidoo kale Shukri ayaa barnaamijka igala qayb galaysa Shukri soo dhawow mahadsanid Firdawsa iyo teamka kaaha nolosha asxaabta ku xiran waa idin salaameynaa waana mahadsantihiin waa tahay aan u guda galno mawduuceena caawa oo ku saabsan hooyooyinka haysta caruurta qaba baahiyaha gaarka ah inta badan waxaa la og yahay Soomaalida ku nool qurbaha gaar ahaan wadamadan hore u maray waxa badan oo jirto in hooyooyin ay haystaan caruura qaban baahiyo haddana baahiyuhu ay badan yihiin oo ay magac ahaan wadaagaan balse mid walba uu kala duwan yahay oo magacyo kala duwan amaba xaalado kala duwan ay leeyihiin sida la og yahay wadamada aan la noolnahay dadka u dhashay waxa ay leeyihiin groupyo hooyooyin ah oo istaageero oo ayagu magac ka midoobay oo qof walba baahida uu qabo ku saleysan yahay anaga Soomaali ahaan waxaan aragnaa ururo FGM tusaale ahaan amaba tusaale ahaan oo kale autism group ah oo waalidiin ah ma jira magac group ah oo hooyooyinkaas ay si direct ah uga heli karaan caawimaad haday ahaan lahayd tala bixin tusaaleyn waxaan ku hormarayaa Sahra Diiriye aad iyo aad baad u mahadsan tahay Firdawsa runtii arrintan hadna weydiisay waa arrin aad muhiim u ah laakiin anugu ma arko runtii maan arag arrinkan aad hadda muhiimka aad weydiisay ma arag hooyooyin Soomaali ah oo inta group ahaan isugu yimid yacnihii iska kaashanaya siday caawimaad ku heli lahaayeen iyo sida iyaga laftirkooda mataqaanaa ama cid u istaagtay oo dhahaysa kaalaya halkaasaan mataqaanaa caawimaadii waatanay halkan baan yacnihii laydinka caawimayaa ma aqaani inay jirto laakiin anigu ma arag shakhsiyan kumaana arag waddankan aan joogo laakiin waxa laga yaabaa inay jirto aanan arag laakiin anigu maan arag Shukri aan siiyo Shukri adiga naftirkaaga waxaad degan tahay hadda UK laakiin hore waxa u deganayd Sweden gaar ahaan Burlanga ma ku aragta Burlanga group hooyooyin ah oo ayagu iska caawinaya baahiyo gaar ah oo caruurtooda ay qabaan runtii waa mawduuc fiican oo Firdaws u baahnaa in la isweydiiyo amaba laga wada hadlo maadaama ummadii oo dhan hadda social media aalada ma aragtay maxaa la ay ku wada jirto waxaa laga yaabaa qof gobolka aad degan tahay wadanka cirifkiisa kale uu degan yahay sida koonfurta ama bariga uusan adeegaas oo kale hadaad isku xirnaataan oo kale kulaylaha oo kale xilliga qaboobaha oo kale caruurta kulmi karto barnaamijyo fiican oo events loo samayn karo laakiin ma arag waan idinla qabaa ra'yiga wayna dhici kartaa inay jirto xataa ma aan arag jaaliyado badan ayaa ka jiro sidaan ognahay meelo walba jaaliyado xataa activities u sameynaya caruuraas baahiyaha gaarka qabo maan arag waana wax loo baahan yahay runtii in oo la isweydiiyo waa tahay waa mahadsan tahay Shukri aan ku soo laabto baahida iyo guud ahaan dhibaatooyinka hooyooyinka ay qabaan inta la og yahay hooyo kaliya ayaa socoto oo hadii ay ahaan lahayd dhinaca tarbiyada dhinaca maxaa la dhahaa xal raadinta mashaakiloodka ilmahooda ay haystaan iyadoo la og yahay hooyada iyo aabaha inay isku mas'uuliyad ahaayeen haddana hooyada kaliya waxaas dhabar ku dhigatay Zahra marka aad aragtid hooyooyinka haysta caruurta
dhibaatooyinka qaba ama ha ahaato kuwa ayu nooc ha ahaatee caruurta disableka loo yaqaano ma isleedahay bulshada ay la nool yihiin hooyooyinka ee soomaalida la ah soo dhaweyn way ka helaan may hooyooyinka aniga qaar badanna waan arkay yacnihii qaar mataqaanaa ila hadlayo ila qaybsadeen waa jiraan yacnihii waxa waaye bulshadeennu ma aha bulsho oo u bisil dareenada dadka kale ama soo dhaweynta maaragtay baahiyaha dadka qaba iyo waalidiintoodaba marka waxa weeyaan ma jiraan runtii wax soo dhaweyn ay kala kulmaan maxaa diidayo zahroy dadki waxay ku dhex jiraan mujtamac hore u maray waxay arkaan nolosha qaabkay u socoto horumarka la sameynayo maxaa diidayo in hooyo haysato tusaale ahaan anigoo haysto cunug baahi gaar ah qabo in ay hooyada kale maxaa keenaya in hooyada kale ee aniga xanuunka cunugayga igu faquuqdo waxa keenaya dee aqoon la-aan baa keenaysa waxaa keenaysa dhaqan iyo mataqaanaa iyo cunsurayn oo maaragtay dadka maaragtay baahiyaha qaba ilmaha laftirkiisa baahida qaba waxaaba loo yaqaanaaba ilmo jiran macnihii waxa waaye ilmahan baahiyaha qaba ama dadkan baahiyaha qaba dad jiran maaha waa dad conditions leh waxay leeyihiin baahiyay leeyihiin marka Soomaalidu waxa waaye waxay leeyihiin oo kii haystay cunugii xanuunsanaa tii haysatay cunugii xanuunsanaa cunuga xanuunna waxaynu aan ku naqaanaa qof xanuunsan oo madawa qaadanaya ama maaragtay xanuun ku dhagan oo marka laga dabiibaya jiro laakiin dadkanu dad dabiib u baahan iyo xanuun ma waa dad raba caawimaad iyo mataqaanaa iyo meelo ay tagaan iyo sida ilmaha kale iyo dadka kale in loo caawimo maaragtay ay waxay xuquuq u leeyihiin la garto marka bulshadeenu ma aha bulsho u bisil ama taqaanaba xuquuqaadka inay dadka kale siman yihiin dadkani waxayba u arkaanba qof xanuunsan inuu yahay jiro ku dhagan tahay maalin marka taasaa keenaysaba inaysan u aragba qofkan inuu yahay qof caadi oo normal oo anagoo kala adigoo kala ah لكن جس ربا عاومات little عاومات سائدة حقا عاومات سائدة والله زهرو إذا دين عن سلها جدال ودي آيات كتابتين عرورة ما عرور حنوسن عرورة ما عرور حنوسن أو عافمات در جوني أيه سكلية وح قابك أي مسكح أهان أكرين أما أياك الدون لقن أهان تود أياك الدون وحين أباهين توبر إلى قبسي إن بلشدو أي عاوسو فهمتو حالة cunugas uu ku nool yahay iyo sida ay tahay in loola macaamilo taas ayaana ugu wacan in hooyooyin badan markii ay dadkii bulshadii fahmi waayaan cunugoodii xaaladda uu ku sugan yahay hooyadii ay ku qasbanaato cunug inay guriga ku haysato ka fogaato meelaha dadka kaleetood oo mujtamaca kale Soomaalida ay imaadaan ay ka fogaato maadaama lagu ceebsanayo dhaqanka cunugeedii lagu takoorayo hadda ka hor adaa warka wada maxaan ku dhahaa Firdawsay hooya ila sheekaysato waxay igu tiri anaa la sheekaysto waxaan ku yiri Soomaalida iyo dhaxgalo waxaasoo meesha ilmo kale oo yarna way haysatay laakiin ilmo yaro waxay haysatay asagana maaragtay caruurtan xoogaa ay hyperactive ka dhahaan oo fudud ADHD-ga caruurtan fudud maaragta marka waxay igu tiri hooyadii ma tago meesha Soomaalida jirto masaajidka markaan tago oo waxay tiri aan dhaho cunugaagi bulshadii hala dhex galo oo maaragtay ilmaha yaro fudud markuu yacnihi ordo waxay tiri kulli horta koo waa wada fiirinayaan intaas kaliya ma aheena waxaan akhlaaqda xun iyo waxaan waalan naga fariisi marka waxay ku leedahay yacnihi waxaan door biday inaaban meel Soomaali joogtaba tegin sida sheegaysid waana sidoo door biday ay guriba isku xirto isolated ba isaga dhigto iyadii ilmaheedii marka runtii waa wax qalbi jabku guridaaya markaad waxaas maqashid runtii sahra waa arin u baahan in xal laga gaaro laga sameeyo waayo bulshada hadda aad ay u badan yihiin cadadka caruurta Soomaalida ee qurbaha ku nool wadan walba kiisaska ka taagan wadan walba oo Soomaalida ay ku nooshahay way buuxaan oo aad ayaa Soomaalida loo hadalhayaa in ay haystaan hooyooyinka xanuunada ku dhaca caruurta koriinshahooda oo syndrome kale isku yiraahdo guud ahaan
mar hadiiba haweenka aan iraade gaar ahaan ay samaystaan organization ururo tusaale ahaan u dooda gudniinka maxaa diiday in ayaga naftirkooda hooyooyinka saas dhibaatada u haysata ilaan hal iyo laba ma ahane in ayagu ay israadsadaan ay ku midoobaan maxaa la dhahaa dalad ahaan ama ayagu ay support group ayaga u gaara ay samaystaan halkaasna ay isku saacidaan maxaa diiday shukri aan sii su-aashaas firdowsa may maqashaan si fiican waata waa mahadsan tahay cilad farsamo ayaa isoo gashay firdowsa waxaan u malaynayaa maadaama qurbaha la joogo ay waalidiinta qaar wadankii ku cusub yahay luqadii ku adag tahay inay jirto xag farsamadu ma aragta xaggooda inay aad u liidato inay hooyadu maxaa la yidhahdaa waaye aragnimo badan haysanin inay talooyinkaas ka maqan yihiin in haddii ay dowladdii la kaashato dadkan aan martida u nahay oo waddamadooda aan ku nool nahay waxyaaba ay ka saacidi karaan ay tahay in dad iyagii la mid ah sida waddanka horan oo kale aad joogtid amaba waddamankan ingiriiska oo kale in loo geeyo dad aanan ku dhaqan ahayn dad aan ku af ahayn dad aanan ku diin ahayn marka dadkaasi ay ku qasban yihiin inay la macaamiltamaan laakiin waxaa ku fiicnaa leh sidaad sheegtay programkan wanaagsan aad u sheegtay in dad Soomaali wada ah dad isku dhaqan ah ugu yaraan xataa dad carab oo kale hadday helaan oo kale oo diintii aad ka midaysanahay oo kale xoogaa taas xataa waxay ka saacidi kartaa isu dhawaansho yar ayay heli kartaa inkastoo ay ka wanaagsan tahay inay qof Soomaaliyeed oo isku baahi ay yihiin ay is helaan ay wada shaqeyn ay samaystaan waa gartay Sahran siinaya Zahra inta aad ku dhex jirtay barnaamijyada ku saabsan caruurta kiisaska inta badan ka yaabiyo oo aad istiraahdo aad ayaad ula damqatay oo dareenkaaga soo jiitay wax ma nooga sheegi kartaa horta inta aanan gelinin kiisaska aan iga yaabiyo waxaan rabaa in yar inaan ku daro shukri su-aashaad weydiisay waxyaalaha Soomaalida ka hortaagan inay samaystaan inay meelo u gaar sameeyaan fiiri dawladaha aan la joogno ama dawladuhu waxay sameeyaan caawimaad way ka helaan dawladaha laakiin Soomaalida waxay u baahan yihiin inay helaan dad Soomaaliya oo bartay ciyaalkan loo yaqaan special needs cilmiga special needs ka markii dadku bartaan oo ay ku dadaalaan inay bartaan waxa imaanaya dad fahamsan wa maaragtay baahida loo qabo hooyooyinkii Soomaalida afkoodii looga caawimo maaragtay oo meelo xataa ay ugu sameeyaan ay yimaadaan oo ilmaha Soomaalida la isugu keeno culture ahaan iyo diin ahaan ba ay meel isugu yimaadaan bay u samaysan karaan ilmoodi laakiin qofkii haduusa skills u lahayn wixii ma samayn karaya ma fahamtaa oo taas waa caqabadaha ku taagan bay kamid tahay Sahra aan ka dhex galo haddii ka soo qaad anigoo caruur haysto ee u baaha caruurteyda ay baahiye qabaan iyo adigoo kaleetood iyo qof kale oo saas waxaan isweydaarsan karnaa fikrado waxaan ka wada sheekaysan karnaa marxaladda aan ku noolnahay iyo waxyaabaha aniga ii shaqeeyo ee laga yaabo in adiga ku shaqeeyaan oo aniga iga faa'iido waxa adiga aad haysato aniga aan ka faa'iido fikrada maxaa diidaya taas group WhatsApp dadka ku kulmaan Facebook group ayaa jiro oo inta badan hadda xilligan lagu jiro dadku aad active ay uga wada yihiin wax diidaya male laakiin mar kastaba u fiiri markii wax la sameeynayo waa inuu jiraa dad yani hooyooyinkii facilitate gareeyo meeshii ay isugu imaanayeen yani u salaxa waayo qofkaas waa inuu haystaa maaragtaa wax kastaba waxa waaye waa in loo toogahaya maxaa la dhahay khayr wax kuma dhigee shar u toogahayn marka aad groupka aad ka shaqeynayo groupkaas la isu keenayo hooyooyinka ilmaha baahiyaha haysta dhalay ama imaanaya meesha iyagu waxa waaye already waxay qabaan mataqaanaa waa dad maaragtay hooyo waxa waaye dee iyadii baaba ilmihii maadaama ilmo kalena haysato kana baahiya haysta waxay u baahan tahay meel lagu soo dhaweeyo oo mataqaanaa loo sii sallaxay hooyadii kale ay ku miid garayso haddii ay in case wax dhacaan inta ay sheekaysanayaan koob shaaha helayso ay nafisayso oo dadka kale la sheekaysanayso waa inay helaan dad ilmihii u ilaaliya maaragtay Sahra maxaa diidaya haddii aan heli karo hooyo dhibaatada aniga aan qabay iyadana qabto marka aan isku imaano aan ceebsanayn aniga caruurteyda
oo aan dhibsanaynin xaaladda ay ku jiraan dhaqdhaqaaqooda aanan dhibaato u arkin la kulankeeda ma wuxuu iiga baahan yahay in qarash la galo in meel la kireeyo ma iyadaa taas iiga baahan wuxuu kaaga baahan yahay waxa waaye ilmihii maadaama uu yahay ilmo oo ordaaya oo maxaan ku dhahaa cararaaya safetygiisa ayaa important ah inuusan ilmihii meel ku dhicin in isha lagu haayo in la maxaan ku dhahaa ilmaha waxa waaye aad iyo aad baa safetygiisa uu important u yahay qofkan meesha aad keenaysid hadda marka waxa waaye hooyadii markaad sheekeynaysid attentionkaagii ama maxaan ku dhahaa waxaad ku qof baad la hadlaysaa oo ilmihii waad ka jeensanaysaa maaragtay waxa waaye يعني inaad isha ku haysa kelmadiiba af Soomaaliga raadinay inaan ku dhaho attention kan rabay inaan af Soomaaliga ka bedel laakiin waxa waaye waa inaa maxaan ku dhaho feejignaantaadii baa meeshii ka baxays marka waxa waaye waxay ku fiican tahay hooyooyinka laftigooda xataa lacag bay iska aruurin karaa ayagaaba ijaaran karaa meel oo ilmihii fiican oo meeshu weyn tahay oo ilmihii maaragtay waxay ku mashquulaan loo dhigo oo ku ciyaaraan haddii kale hooyihii ma sheekaysan karaan haddii ilmihii aan la mashquulin iyo inay intaa xataa ay sheekaysanayaan ay helaan dad ay ilmihii u qabtaan oo dad xataa iskaa wax u qabsaaba imaan karaba dad ah oo hataa Soomaaliba ahayn bay xataa u yeeran karaan oo dhihi karaan waxaan haysanaa halkan qolkaasaan haysanaa annaga lacagta iska aruurinay maaragtay noo imaada inta waxaan rabnaa maadaama aan hawshaas ku jirno inaan nafisno annagii aan wax isdhaafsiisano dadka ma ogtahay gaalada ama dadka ummadaha dad badan oo naxariiso dadka waa imaanayaan oo iyaga caruurtii kuga haynaya qolkaagii adoo joogay meesha kuga haynaya waayo waxa marka wax diidaya male laakiin waxa la rabaa hooyooyinka laftirkooda inay horta is aaminaan sideedana Soomaalida hadaynu nahay sidee la isku aaminaas Zahro sidee dadku isku aaminayaan hadii qof walba ay aaminsan tahay waa lagu ceebsanayaa ama aniga magacayga la ii bedelay hooyada cunuga xanuunsan haysatay sidee ugu dhiiranaa inaan aniga dadka soo raadsado waxa la rabaa inaadan kala jeclaanin waayo adiga waxa waaye waa ogahay hadii dadkan waa inaad ogtaa waxaan dadkani inay u geynayso aqoon la'aan ama fahmis la'aan dadka marka waxa waaye waxay ku yiraahdaan haddaan cararno carar kuma jiri karaysid waa inay hooyadu fahamtaa dadkan inay iyaga laftirkooda wax barto wax tusto qofkan inuu mataqaanaa intay kay wax u sheegi karto ka dhaadhicisa cunugeedu inuusan ahayn qof jiran uu yahay qof baahi gaar ah leh kii kalena waa inaysan danayni ay danteeda qabsataa oo soo baxdaa ayadoo uu yahay maskaxdeeda iyo caqligeeda inay wax bedesho dabeecaddan iyo dhaqankan xun inay bedesho ilmaheedii inuu ay u tusto bulshada inuu yahay ilmo normal ah oo ilmaha uu jas baahiya dheeraada qaba maaragtay xanuun ku dhagan aysan jirinin boqolaal la midahuna jirto ayaga kaligeedna aysan waxaan ku gaar ahayn marka waxa la rabaa hooyooyinka laftirkooda inay arrintan wajahaan baa la rabaa oo aysan mar dambe aysan daahiyada dabadooda gelin oo caruurtooda aysan shame iyo waxay ka xishoodaan aysan noqon ay caruurtooda proud ku noqdaan Allah siiyay subhanahu wa ta'ala habba inta ku noqdaan ay soo baxaan oo isu tagaan oo lacag iska aruuriyaan oo si yimaadaan u yeertaan dadka kale intay sheekaysanayaan oo nafisaya shaahooda cabaan ilmahoodina meeshaas ayagoo u jeedo loogu hayo hortooda Zahra aad iyo aad ayaad u mahadsantahay way fiicnaan lahayd dhiirigelintaas in dad badan ay lahaadaan ay ku dhiiradaan inay ka gudbaan caqabada in la ceebsado amaba xanuun ilaahay keenay qadar rabbi in qofka lagu ceebeysto run ahaantiina waa wax ugu badan oo bulshadeena ka dhex taagan in qof dhibaato haysato dhibaatadii looga dhigo maxay ahayd ceeb looga dhigo oo dadkii laga soco shukri ayaa barnaamijka iyadana nagala qayb galayso shukri sidee looga gudbi karaa in qofka dhibaato xag rabbi uga timid looga ceebsaday lagu ceebsado oo lagu takooro sidee looga gudbi karaa ka hooye ahaanse sidee u aragtaa xaaladaha socda iyo hooyooyin noocaas inta badan waad aragtay waadna la kulantay ilaan bulsho ayaad ku dhex jirtaa waliba xaafad waxaad ka soo guurtay Soomaali kaliya gees ilaa gees wada deganeed runtii waa sax sidaad sheegtay waddanka Sweden markaan nimid waxaa ka mid ahayd maalin dhan cashar waxaa nagula siiyey dadka baahiyaha gaarka qabo marka filimku wuxuu ku saabsanaa maadaama waddanka ku cusbeen habka loola dhaqmi karno dabcan waxaan u maleynayaa in dadkii loo waramay oo anaga maadaama aan Soomaali nahay oo qofkii dhagay loogu yeero qofkii iligay loogu yeero caga weyn iyo wax saas magacyo noocaas isugu yeerno intuu magac noo tahay reeruhu marka
filinkii markii noola daaray waxaa arkaysaa ilmihii baahiyaha gaarka qabay oo weel miis wax ku cunaayo ilmo kale ilmuhuna waa aragtay markay yaryar yihiin waxbay sheegaan oo dadka agmaraayo iyo qofka waa dheer iyo qofka waa buuriyan way dhahaan haddaan laga celino la abaabin markaas ilmihii waxay leeyihiin arag qofkaas baahida gaarka qaba hebelka lugta la camal wax saas markaas hooyadii la socoto markaas aamus yoona maqlen sidaa lama dhaho ha ugu yeerinyaa magac buu leeyahay magaciisa ma weydiinaa camal aa la dhaha marka ilmihii tarbiyadii waxay kasoo bilaabataa aas-aaska hoose balse anaga waxaan nahay qowmiyad qofka meeshuu la-yahay magac looga dhigo ayna normal tahay waxaan u malaynaa arrintan in loo baahan yahay in wacyigelinteedu aad bilowda Firdowsa ay socoto si maxaa la yiraahdaa intaas magacaan isaga dhigayna meesha uga baxdo hooyada dhibanaha ah oo maskiinta ah oo ilmaha kale iyo ilmahaas baahida gaarka ah la daala dhacaysa oo magaceedii loo bedelay laga yaabo in deeqa loo bixiyay reerkeedii deeqday magac qurux badan loo bixiyay magacyo qurux badan loo bixiyay oo Soomaalidu la baxdo gabadhaasina markaa magaceedii loo bedelay ilmahaas uu ilaahay uma waayin ilmahaas lixdiisa lixaad iyo baahida gaarka oo ilaahay ku manaysto waa imtixaan adduunyada mugta alxamdulillah waa in wax walba lagu dhahaa marka waxay u baahan tahay arrintaas in loo kaco oo aad la isaga wacyigeliyo annagana aan isku naxariisano ilaahayna aan ma aragta raalli kama aha qofku wuxuu dhibsanayo tusaale ahaan magaca uusan rabin in loogu yeero waa mahadsantahay shukri inta badan waxay wadamada hadda Soomaalida inta badan ay ku nool yihiin waxay helaan fursado in hooyada iyada nafsad ahaanteeda ay wax ku barato si ay isku caawiso xaaladda ay ku jirto isku caawiso amaba loo ballan qaado in la caawiyo ka Soomaali ahaan hooyooyinka marka dalab u yimaado in caawimaad loo fidinayo si loo hormariyo hooyooyinka Soomaalida ma ku dhiiradaan oo ma aqbalaan caawimaadaas in si xaaladda ay ku jiraan ay wax uga bedelaan waxaan siinayaa Zahran siinayaa maadaama in badan ay iyada ka shaqeyso waxyaabaha ku saabsan caruurta iyo horumarintooda Firdowsa aad baad u mahadsan tahay arrintaas waa arrin runtii aad iyo aad muhiim u ah laakiin hooyooyinka Soomaalida intooda badan hadda xogaa waxaad moodaa in laysi soo bedelayo laakiin weli caqabadihii way jiraan oo hooyo ta meesha aaminaad baa jirta Soomaalidu inteeda badanba waxa waaye sistamyada ama dawladaha aan ku dhex nool lahay ma aamina sababta aysan waa dad xiran oo ilmihiya laga qaadanayo hooyadu isleedahay dabeecadii hadii gaalada ay u dhawaatid cabsi iyo kalsooni darro weyn baa haysata xataa taas kaliya ma ahane waxa waaye xataa tarbiyada carruurta markaan u bilaabeynay waxa waaye nin iyo naagba waa nala dirireen adoo wax baraayo oo inaad dhaqankooda wax ka bedesho wax fahmaan barax ku leeyahay carruurtii wuxuu la shaqeeyaa hebel wuxuu la shaqeeyaa social service-ki wuxuu rabaa in ilmaha laga qaato yaan loo tagin yaan la agmarin qofkii wax baraayay haddaa xataa madaxa maxaan ku dhahaa xanuunada nafsiyanka ama dhibirka aad tiraahdid aad tareerin ka bixinaysid oo aad rabtid inaad wax bartid sida isaga maarayn lahaayeen maartaqaana xanaaqa iyo depressionka iyo waxa u bari lahayd xirfadahay u baahnaayeen waxaa la leeyahay dadku qofkaanu Firdowsa dadkay waashaa agteeda yaan laga laabanin marka dhibaato iyo juhdi weyn baan ku soo bixinay runtii inay isbedelaan oo wacdigelin meel kasta iyo inagoo tababar siinayna marka waxbay soo fahmayaan hadda runtii marka waxaa hadda laga yaabaa inay dad badan wax bartaan oo wax ogolaadaan laakiin dee hadba kuwii cusub oo imaanaya baa iyaguna iyagoo dhaga xiran imaanaya ma ogtaa kuwii hore xoogaa markii hadda wax soo fahmayaan kuwii dambe oo imaada oo hadda badan oo iyaguna imaanaya ama ha soo galaan oo xagga badda ha ka soo galaan ama ha la keene kuwaasaa iyaguna halkii ka sii miisaayo halkii taagan run ahaanta ayagana waxay u baahan yihiin in ayagan caawimaad waxay xaq u leeyihin inay caawimaad helaan maadaama systemka ay ku cusub yihiin wixiina ay tahay in mawduucii baahida ee markaas haysata mar walba qofka laga caawiyo run ahaantii tan waa kula qabaa oo dadka Soomaalida si dhaqsiya kuma aaminaan dadka kale gaalada tusaale ahaan aniga markii la yiraahdo Firdowsa kaale imaaw waxa laga caawinayaa ama gurigaaga lagu imaanayaa waxyaabaha laga caawinayaa waxa laga yaabaa inaan ku fikiro mar raba inay qof gaala gurigayga soo gasho oo maxay ahayd report bay iga gudbin kartaa saambay wax saas bay iga samayn kartaa
ma raba qaabka ilmahayga aan ula dhaqmaayo inuu qofkan lacala uu arko inta badan waxyaabaha dhacay ka mid tahay balse waa rajeynaya in wax badan iska bedeli doonaan hooyooyinka soomaalida ee dhibaatada haysata ee aan runtii aan ku tilmaami karo inay yihiin halyeeyada nolosha qoysaska soomaalida in ay ayaguna xaaladoodaas wax badan iska bedeli doonaan la heli doono groupyo Somali mothers group support groups inay heli doonaan runtii mar aan raadinayay waxaan arkay Somali sisters group support sisters group inay ahayn oo Facebook aan ku arkay inkastoo aysan topican oo waxba ka quseyn ayaga inta badan caruurta gabdho waxa arkay sidoo kale arkay ilmaha autism qabo kale oo ayagu qaarada kala duwan joogo oo ayagu isbihaystay oo group ahaan isku bihaystay laakiin magac ahaanka guud ahaan way yar tahay dadka ayagu iscaawiya hooyo dhiban oo kala dhibaato haysata moral supporting waxa la yiraahdo aad ugu muhiim ah adigaas Zahra ahaan maanta waxba ha ii qabanin laakiin waxa igu filan in aad dareemi kartid aniga waxa aan qabo xaaladda aan ku suganahay aad dareemi kartid aad igu taageeri kartid kaniyad ahaan aad ii dhisi kartid sababtoo waxa la ogyahay hooyooyinkan 24 hours inaysan nasanin daalkoodu u badan yahay daal jir ahaaneed daal maskax ahaaneed u baahan yihiin niyad in loo dhiso waa rajeynayaa aan ka dhaxgal fatooso taasoo u dheertahay in magacii loo bedelo magac kale loogu yeero xaqiiq jirto magac kale loogu yeero runtii gabar baa hadda ka hor iiga sheekaysay waxay tiri wiil baa iga ka dhintay marka muddo kadib laba gabdhood baan arkay midna waxay tiri laba gabdhood oo walaalo ah isku hooyo isku aaba ahaan hay tiri marka oo midna iga weyntay tiri midna maxay ahayd marka soo sheeqaaday tiri magaceena oo la yiraahdo reer Heblaay gabdhahooda markaas dadku waxay idhahaanay tiri aniga gabadha cunuga ka xanuunsan gabadha cunuga xanuunsan haysto marka magacayga isbedelay tiri wuxuu isku bedelay gabadha cunuga xanuunsan haysto mid kalena group baan ku arkay hadda ka hor sanad ka hor 2 sano ka hor inay ahayd amaleen 2 sano ka hor arkay dhahaysa waxa igu dhacay cunuga iga dhintay dhahday marka muddo kadib waxaan noqday tiri dadka marka la sheekaysto oo la tilmaamayo aniga in maxay ahayd xitaa dadka qaarkood magacayga aysan soo hadal qaadaynin gabadha cunuga ayaanti ka dhimanayay in dad badan iigu yeerayaan waana runtii nasiib daro waayo qofkas xanuunkii gaaray inuu hilmaamo u baahan yahay ma ahan xanuunkii haystay in mar walba la soo xasuusiyo waa caadooyin oo aad u xun run ahaantii barnaamijka bilaaw aan u malaynayo insha Allah wacyigelinta in halkaa ka sii wadid barnaamij fiican aad adaha furtay runtii loo baahnaa in oo ma aragta laga hadlo social media marka qaar mareegtada markaan fiirinayo ma arag program saas qof ka warrama waan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan quruxda badan Firdawsa adiga mudan shukri maam Sahra siinaya waxaan rabaa in aan in yar kula wadaago waxaa jirta qoraal hadda ka hor aan arkay maalmo bil 2 bil ka hor gabadha Facebook ku soo qortay maxaa dareemi lahayd haddii hooyadii adiga ku dhashay ama gabadhi adiga walaashi adiga kula dhalato oo caloosha iskala soo baxdeen ay kugu caynayso cunugaaga oo autism ah run ahaantii aad iyo aad aniga u naxay markaan arkay qoraalkaas qofba si jawaab waxay u siinaysay talo u siinaysay reaction dad badan ka bixiyeen hadalka gabadhaas run ahaantii wuxuu ahay hadal ani maskaxdeyda mar walba ku soo laalaabto oo aanan hilmaamin hooyooyinka adiga hooyada adiga ku dhashay way dareemaysaa adiga xanuunka ku haysta laakiin arinta noocan oo kale Zahro moral ahaan gabadhaas sidee ay u dhaawici kartaa maadaama familkeeda qoyskeedii ay sidaas ula dhaqmayaan horta yacnihii gabadhaas horta haddii ay arrintaas sayto walaadkeeda markay saas uga dhaqmaayaan kolley waxay dareemayso waxa waaye qofka bini'aadanka horta dadka dareemadoodu isku mid maaha waa kala dareen laakiin iyada markaan ka soo qaado iyada hadda waxa ay qortay oo aad adiga hadda nala qaybsatay waxa waaye waxay dareemaysaa waalidkii ku dhalay sidee buu maaragtay waxaas kugu jawaabi karaa hooyadana waa sideedaba raxmad baa laga fishaa iyo naxariis iyo faham inay ku fahamto marka yacnihii marka waxa waaye iyada booskeed waxa waaye naxariis baan kaa filayay inaad igu cambaaraysid cunugayga ama aad niyadda iga jebisid ma ay ahayn waxaan kaa sugayay ayada iyo walaasheedba dadka kuugu xigo kuugu dhow
oo maxaan ku dhahaa dee qof kasta kaaga sokeeyo riximka ku ah iyo waxaas markay ku yiraahdaan waa xanuun badan tahay runtii oo aad ka filaynayno oo dee ayeeyo waxay joogtaa booska hooyada habaryarna waxay joogtaa booska hooyada waa tan Soomaalidu dhahdo waa hooyada aan dib yani ku foolan ma hadii sidaas inay ahayd baan u malaynaya marka yani waan garan karnaa laakiin dhibaatada meesha taala waxa waa gabadhaas kaliya ma aha Soomaalida ma aha dad dareenka yaqaana ama la baray dareenka sideedaba waxyaalaha aan Soomaalidu shaqada ku lahayn waxa waaye fahamka ama naxariista dareenada qofku say dhibaato dareenadu inuu cudurka kaliya oo maskaxda ama nafsiyanka keena inuu yahay dareenka ma ay oga Soomaalidu waayo wax kastoo qofku soo maro waxa saameynta ugu weyn kule waxa waaye dareenada la gaarsiinayo dareenadiina hadda shukri baa taabatay markii qofka lagu caayo wax ilaahay maxaan ku dhahaa u keenay lagu caayo yani markaa la caayayo lama fiirinayo qofkan dareen ahaan wuxuusa asaga eed ku lahayn in lagu caayo lama eegayo dareen ahaan xataa lama dhahayo qofkan dareen ahaan amay wax u geysataa oo dhaawac u geysataa ma fahamtaa marka yani waxa waaye cultureka hooyadeed ka timid iyo walaasheed baa wuxuu yahay culture dareenada qofkaba lagu abuse gareeyaba oo lagu level gareeyo oo xanjo looga dhigo oo ilaa qofka maskiinka ah caydii iyo afxumadii uu asagu iska ogolaado marka dad waxaa jira iska tag iskiin bay dhahaan Ingiriiska dad maqaarku iska adag yahay waxaa jira wixii iskaga bartay oo waxa weeyaan waa feer iyo haraati baa deena lagu soo koriyo feer iyo haraatigi dhinac ka raac iyo qasab waxa ka dhigaya baayadaas aad ku nooshahay ayaa waxay qasab ka dhigaysaa inaad dhibaatadii lagu geysay aad ogolaatid oo la qabsatid adduunkana waxa waaye waxa markii laga badiyo maanta oo dhan hadaan intaan maxaan ku dhahaa meel gidaar aan ku dhahaa shukri waxa tahay caloolweyn saan kuulayo ka dibaray marka dambe caloolweynti baa isu qaadanaysa xaldeeda caloolweyn bara adigii baa aaminsan ba maskixiyan baad u aaminaysaa waa mental abuse waa mental abuse ma fahamtay marka mental abuse kale waa waxa adduunka ugu xun marka يعني waxa waaye hooyadeed ha u aragto inay hooyadeed laftirkeeda waxaas iyo wax ka daran la soo yiri ama wax la oo aysan aqoonba qofku muxuu jaahil ka yahay laguma eedayn karo habaryartii hooyadii baa jaahil ka ahayd shukr aan ku darsado sahar adiga wato warkee waxaad u malaysaa waxa hidii dhaqan geedkoo kale xididuu leeyahay dhulku ku duugan yahay qofkan ilaa iyo hooyada inta leego ma sha Allah ilmaha dhashay oo saas dhahayso waa wax xageeda normal ay ka tahay kama ah sidaad sheegaysa waa lagu soo kori waa lagu soo ababiyay aabaheed baa laga yaabaa in ila iyo dhagay loogu yeero marka waxba uma aragto marka sheekadu meesha ka sugaynay meesha joogto wax isku dhow ma hadiya waad mahadsantihiin barnaamijku waa soo gabagabaynaynaa waxaan rabaa inaa hal idin siiyo laba daqiiqo qof walba tala soo jeedin wixii tala uu soo jeedinayo ku habboon hooyooyinkaas qaabka ay isku caawin lahaayeen ileen gargaar ayaga dhexdooda ayaga isku baahi ayaga dhexdooda in ayagu ay midoobaan ayagu ay israadsadaan gurigaaga mar haddii aad joogto qofna kuma soo raadsanayso tanna qolkeeda isku oodo cunugeeda meesha ku ceshato tan kalena sidoo kale isku xaaladina ay ku sugan yihiin waxaan idin siinaa laba daqiiqo talooyin ay soo jeedin lahaydeen waxaan ku bilaabayaa Zahro shukriyan ku xijinaa markaas waxa waaye yacnihii maba ahanba carruurta xataa baahiyaha keliya qabta xataa carruurta kale hooyooyinka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay isku tashtaan ayagu jeebkooda lacag ka soo gurtaan fiiri qofka markii uu wax samaysto baa wax loogu daraa ninkii wax samaystaa markii lagu arko baa wax lagugu daraa hooyooyinka Soomaaliyeed waxaa la rabaa oo ilmahooda ay qabaan baahiyaha gaar kale inay inta isu yimaadaan oo horta shiraan oo wax aruursadaan meel ijaartaan magaalo kastay joogaanba magaalo isugu yimaadaan magaalada oo meel ijaartaan oo asbuuca hal mar meelahaas inta tooyadis ugu ciyaartu ku ciyaarayeen keensadaan oo ilmahooda ma taqaanaa ay inta la xiriiraan maaragtay waxa jira hay'ado
oo dad u soo diraayo oo rababa rabbiba ku maaragtay cid kasta ay ula tagaan oo dhahaan xataa naga caawima xagga alaabooyinka carruurta ku ciyaarto waxyaalaha cid kasta waa ka caawimaysa laakiin markii hore inay iyaga isku tashtaan oo lacagtooda ay ka gataan alaabta ay u baahan yihiin ilmahoodu asbuuci halka isugu yimaadaan dad u ilaaliyay helayaan maaragtay Soomaalidu waa inay aamintaa ama barataa iskaa wax u qabso inay wax kasta u qabsadaan ee aysan ninnana isku tiirinin ayagu ay dhexdooda iska saaraan ilmahooda iyo dhalinyaro ama hooyooyinka laftigooda xataa tababar aadaan oo wax ogaadaan oo wax bartaan kuwooda wax yaqaanaa tareerina online-kaas hadda gurigaaga adoo joogaad 100 tareerino ku saabsan maxaan ku dhahaa baahiyaha gaarka waxaa la dhahaa children maxaan ku dhahaa special needs anaga afka Ingiriiska saasaa lagu dhahaa maaragtay child special needs koorsooyinka gurigaaga ku samaynaysa hadhowna practical baad ula tagaysaa meeshii hooyooyinku joogeen ayagii dhexdoodii hooyooyinka laftirkooda markuu ka hurdo ama iskuulka ka jiro hays tareerin garayso hooyo kastaba hadday tii wax fahmaysaan sheegaya luuqadda taqaan tii kalena ha barato luuqadda ilmaheeda mideeda kale waxay baranayaan cuntooyinka xataa nutritionka marka laga hadlo cuntooyinkeebaa ku fiican cuntooyinkeebaa cilmihii hyperki ka jaraya cuntooyinka cilmihii orodki ka jaraya kuweebaa maskaxda u fiican kuweebaa dejinaya waxaasoo dhan waa inay ogaadaan ma aha autismka keliya iban ilmahan hyperactiveka cuntooyinka haddii macaanka laga daayo cuntooyin guriga looga kariyo kulli way soo degaan caadi way soo galaan mideeda kale banaanka loo saaraa gruuba isku raacayaan kaalaya maanta lugayne buuraha geyne xagga geyne yacni ma aha xataa inay ilmihii banaanka good idea aad u mahadsantahay shukri adigana aan ku siiyo soo gabagabeynayna kadib waa adoo mahadsan runtii waxaa jirta laba hooyooyin oo caan ka ah baraha bulshada ma aqaan inaad la aragteen ma rabo inaan magacooda soo magac dhabo ama xuso runtii hooyooyinkaas waa hooyooyin dhaqdhaqaaq badan baraha bulshada ay soo dhigaan carruurtooda activities badan bay u sameeyaan runtii waxaan dhihi lahaa dabcan yaa la niyad jabin waxaan waa qadar ilaahay alxamdulilah wax walba wuxuu alla keeno dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ha loo naxariisto oo ha laga daayo magacooda iyo ma aragtay iyo hala ixtiraamo dad walaalaheena Soomaaliyeed carruurtan waa carruurteena kala ah ha loo naxariisto la isku naxariisto magac xumada iyo dhag xumada iyo magacyada loogu yeeray aysan ma aragtay loogu yeerin ha laga daayo intaas ayaan ku darla aad ayaad u mahadsantihiin fursadiina qaaliga anigana waxaan ku darsan lahaa in hooyooyinka aysan niyad jabin oo maxay ahayd ay mas'uuliyadda ay haystaan oo ka adag tan hooyada haysata ilmaha caadiga in ay mar walba ay taagnaato aysan niyad jabin hadallada xun ee banaanka ugu imaanayna aysan dhag u dhigin waayo qofka xaaladda aad ku sugan tahay soo maray oon kaliya ayaa ku dareemi karo qof walba oo banaanka kaa taagan kuma dareemi karo waxaan leeyahay hooyooyinkaas waxaad tihiin hooyooyin aad adag waxaad tihiin hooyooyin mudan in maxay ahayd laydinka abaalmariyo xaaladda aad ku sugan tihiin saas ay tahay bulshada Soomaaliyeed oo weli aanan ku baraarugsanayn marxaladaha qaarkood ee bini'aadanimada iyo dareenka qofka sida bini'aadanka loogu naxariisto darteed dheg ha u dhigina waxaad samaysan kartaan inaad adinka dhexdiina israadsataan xaafad walba waxaa laga yaabaa magaalooyinka qaarkood waxaa laga yaabaa in Soomaalida ay ku badan yihiin guruubyo badan ay ku degan yihiin maadaama aad ku badan tihiin meelaha aad ku badan tihiin ka bilaaba inaad WhatsApp samaysatiin qof kastoo aad isku xaalad tihiin aad israadsatiin bartas aad ku kala tusaale qaadatiin aad su'aalo isweydaarsataan waxa adiga aad u baahan tahay aad isleedahay gaalada lama weydiin kartid ama kama raadin kartid qof kaloo hooyo Soomaaliyeed oo iyadan xaaladaas ku sugan balse kaaga aqoon roon ee taqaano raadi iyada la sheekayso haddii adiga aadan bilaabin xiriirkan waxaa laga yaabaa inaysan hooyada kalena bilaabin ay tiraahdo qof walba isqari ee gurigaaga ku xabisnaa xaaladda aad ku sugan tahay adiga kugu koobnaato waxaan idin leeyahay waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda in la helo guruubyo hooyooyin ah ku midoobay baahiyaha ay qabaan hadday aan lahaayeen ayu nooc carruurtooda baahiyaha ay qabaan kuwa aan baahiyaha qabin ayaguna carruurtooda noloshooda ay u fiican tahay waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo carruurtiina dhammaantiin meel walba adduunka ka joogtiin barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaa igala qayb qaadatay Sahra Diiriye sidoo kale Shukri Siidow halkan ayaan kusoo qorayaa janaladooda waa waxay leeyihiin YouTube janala oo kala kacsan follow gareeya ayagana waa kaasaa inta barnaamijka Shukri
asxaabta janaalka firdowsa ka aha nolosha asxaabta la wadaaga subscribe-ta share-ta commentiga dhiirigelintiinu waa muhiim sidoo kale Zahra iyadana waa soo qoraya YouTube-keeda follow gareeya waxay bixisaa wacyigelin aad u fiican run ahaantii aniga aad aan ula dhaco badanaa intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.